dad qof asoo dhiban walaalkiis dhibkiisa dhayaayo Faadumo ayadoo dhiban ay dhibka hodan dhayaysaa السلام عليكم سودواد ولا الحقالي جاي تبجل كان قال سعطا وقوسك قرنيقا ولا شمس مركله اسكسو نقد وناكسن ولا لها عصب iyo walaalaha gadaal nooga soo biiray dhamaantiin waa mahadsantiin share subscribe like comment kulli waa xaqina insha Allah 35 wax yar nooga dhiman yar markaan 40ka u gudbayna insha Allah hadii ilaahay raali ka noqdo maanta ila bariina ku buuxinaa laga yaabaaba waa mahadsantiin sida quruxda badan aan walba igrab taagantiin waana idinkaga mahad celinayaa dhamaantiin jazakallahu khayr adin leeyahay waxa rabaa inaan ka hadlo walaalaha qaaliga waxaan ku raadayay laba gabdho walaalahay ah oo aad aan u jecelahay waan aad u daawado oo aan aad u taageero oo ma arkino farxadooda aan jecelahay oo kala ah Faadumo Brambur iyo Hodan online habeen dhaxdaas live ku jireen live-kii fiirsanayay ahaantii live-kooda ma arkino mid walba hadaladeeda way ku taabanaysay waxaan ku bogaadinayaa ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay gabdhaha Soomaaliyeed kooga dhiban iyo ka kale tab inay isgarab taagan yihiin is dhiirigelinayaan inay istaageerayaan inay is farxad gelinayaan inay dhibka isla qaybsanayaan inay isku nafisayaan ما شاء الله هذا الإبكيدي كهالليسي maxaan ku raahdaayay ii sheeg Faadumo dhibkeeda ka haleysay talooyin fiican ay siinayeen way isku nafisaayeen dadka qaar oo TikTok waxa arkay muuqaalada intay soo jiraan kuwa Hodan oo kaleeto yaani ma arkino hadaladii ayagoo wixii fahmin bilaaw ilaa dhamaad fahmin intay soo qaatan ayaga fikirkooda uga hadlaayo Soomaali hadana mana laga waaynayo dad ma arkino si xun wax u sheeg ah ama si xun wax u fahan ah mana laga weynaayo labadaas gabdhood Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u baryaaya oo uga baryaaya in ma arkino Hodanna Ilaahay qalbiga u dajiyo awlaad la koriyo Faadumana Ilaahay qalbiga u dajiyo awlaadeeda u soo celiyo iyo farxadeeda iyo ma arkino noloshoodii ma sha Allah inuu Ilaahay u soo celiyo Ilaahay uga rajeenaya labadoodana waxaan aad iyo aad ma sha Allah aan ugu faraxsanahay oo wax qurux badan u tahay gabar walba wanaag ninkeeda inay ka sheekeynayso oo ay jiraan niman wanaagsan inaan qabno ay cadeynaysaa halka qaarkood ay ma arkino nimanka ba-ooda iyo dhibaatadooda ay ka sheekayaan laga yaabo ayagana in la soo xumeeyay laakiin marka ay aragtidna wiil Soomaaliyeed oo la amaanay xaalada ma sha Allah wala wiil wanaagsan wali waa lagu jiraa waa ku farxaysa laakiin markii nin xun laga sheekeynaa niyad diran anta ka jabto waxa leedahay balaayaha ku dhici weysay nimanka dhib badana ya marka xoogaa marna way fiican tahay gabdhaha inay ma arkino wanaaga ninkooda sheegaan way fiican tahay ma sha Allah labaas gabdhood runaantii dhibaatada ayaga gaartay markii laga soo tago bulshada Soomaaliyeedna qayb lixaad ay ka qaateen qaarkood inay gabdhaas dhibaateeyaan koomentiyaasha dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan Hodan ma arkino way ka sheeganaysay gabar waxa jirta dadka muuqaal ka soo sameeyay oo Hodan dhahday ninkeedii dishay oo baarti ka soo sameeynayay si ay gabadhaasati ugu kala kacsato TikTok-geeda subhanallah bal aragad qof walaalka oo dhibaataysan ma ku sameey kartaa ani waa ka soo hadlay runaantii waa ka damqaday damiirkayga oo sii waa inaan ka aamuso ma arkin wali qof kale oo ka soo hadlay inay arkin dadka kale waa laga yeelaa ani waa ka soo hadlay ma ka soo hadlay ani ka soo hadlay dad badan ani igu soo jeediyay sheekadii oo comment-iga liga soo wadaay adiga waaye qofka TikTok-ga soo sameeysto qofka soo caaynayo subhanallah Soomaalida noocaas ah ku jira marka aniga YouTube-kayga waxa u sameystay xora oo ana iskale qof ma kala tashanay waxa maanta soo gelinayo xora oo ahay wixii wanaagsan qofkii lagu dulminayo inaan ku difaaco wixii markaas jiro oo dadka dhanka wada hadlayo inaan ka wada hadlo oo si ma arkino fiican ah uga hadlo laakiin qof hadii la dhibaateynayo waa la safanaya Soomaha waxyaabaha qaar oo shaki iiga jiran inaan dhexdhexaad ka ahaado bis gabadhi anaaba dadka dhanka uma tignan ba anay ugu soo jeesteen oo anaaba la wada jafay adaa xumeynay adaa gabadha san ku sameeyna adaa ma arkino inaa caan ku noqotirta adaa ku kala kacsanayso views raadinay halkaas views ka gal dadka qaar waxay iska soo jiraan ma arkin baan muuqaalkaas TikTok ma ku arkin maxaan ku raadayay adaa sameysatay aniba TikTok ma ku arki leeyahay Hodan soo dhigtay meesheeda sidii u tabagal sidii uga soo hadlay waxa muhiimad ay tahay qofka walaalkay aan difaacayo oo garab taaganahay inuu ii ogyahay muhiim ah dadka kale koomentiyaashooda Hodan way ogtahay ani inaan ahayn qofkaas weyna ogtahay inaan walaasheed garab taaganahay muhiimadu waa intaas markii laga soo tago Faadumona dhibaa gaaray koomentiga ayadana waa laga dhibaateyn jiray way noo sheegtay muuqaaladooda ma soo qaadanin waa fasax ayagu ma haysanin maxaan ku iraahdaay badanaan leefku ka sheegtaa Hodan muuqaaladeen ha jarnin ha qaadanin ee dhaxda badanaa way sheegtaa
marka taasaa iskaga dhaafay hadda kahor xilligii tacsida bisaa soo qaatay kadib marka arkina ka cabanaysana waa iska dhaafay bis marka run ahaantii ani hodan markastee leef soo gashay xataa youtube-ka ma dhaxdaas way kasoo gashay ee ka sheekaysa dhibkeeda ee ooyda wallahi maraa la ooynin malahan been idiima sheega gabadha bilooyinka dab ugu badan oo bilo ooy ayada waayo sababta idin sheegaya aniga maxaan ku raahdaayay waxaan ahay dadka ma arkin oo beerka jilacsan qof hadoo ooynaa la ooyo Faadimo maasha Allah gabar calool adag waaye dib wuu ku dhacay laakiin waa gabar calool adag Allah u siyaadiyo dala ka xun Faadimo waxaan arkaa ayadoo markii ka sheekeynaysa dhibaatada ku dhacday aniga ooynay ayadana caadi uga sheekeynaysa laakiin caloosh ka dareemaysa marka dadka saasi galiyihiin hodan aada loo dhibaateeyay waliba gabadhaas ma cafinayay tiraahday inta noolaha ma cafinayay dhahday because way dhaawacday qof dhibaateysan oo xanuunki haay ka war qofkii dhan oo u dismuraalsanta oo xanuunsan tahay oo iloobi la adaadil hadii lagu xanuun ma ho marka iska dhaafa Soomaaliyeed commentiyaasha xun iyo waxyaabihiinaan aqoonin waxyaabaha xogtooda heenin waxyaabaha ka warqabin iska dhaafa Faadimo sidoo kale commentiyaasha waa liigu dhibaateeyay tiraad heer ninkeygi dhaho ayaa dadkan teleefankooda isiyaa u sheego dhax gabadhan ka dhaafasaan ha dhihnine heerkaas la gaarsiiyay ninkeeda mar walba ninkeyga dhiirigelin jiray tiraad ma sha Allah tabarakallah hoodana mar walba inoo sheegi jirtay inuu ninkeeda dhiirigelin jiray ilaahay naxariista janna ha siiyo wanaagiisa see nooga sheegtay ilaahay waxaan ugu baryaynaa mar walba inoo sheegto wanaagiisa in aakhira loogu abaalgudo insha Allah jannatul firdaws qabriga cariiri iyo cadaab inta uu soo ku arkinay wuxuu ka naxo ilaahay idinkiis ilaahay ma baryaynaa anaga wax kale ma awoodno hodan mar walba u duceeyaa Faadimo baraambarna mar walba u duceeyaa labadaas gabdhood walaa habeenkaas leefkooda marka fiirsanay waa ku dhafray xilli dambe inoo aheed anaga ay gurbi joogaan waxa laga yaabaa kala horeyno laakiin xilli dambe ku gaaray aad iyo aad habeenkii dhan waa la ooyo waa la murugoodo wallahi beenni ma sheegay qalbiga ereya ka taabanayo ayay ka hadlayaan marka labadaas gabdhoodba Soomaalidu waxaan leeyahay qofka walaalka hadii aad ku taageeri karin muuqaalkiisa inaad daawatid oo leeg u dhahdid subscribe iyo share waxa adiga awoodid oo easy kul ah oo wax weyn ahayn aad u sameey karin afkaaga ha ka nabad galo oo yani walaalka commentiga ku dhaawacin waa bil aadan adoo kala hadalka aa walaalka u quuraysid oo ina u qorto rabtay adii isku tijaabi adima ku qalma hadalkaas in lagu dhaha ma jeclaan lahayd waa may Soomahan hala jeclaysan walaalka waa sax wax aad naftaada la jeclin hala jeclaan qof walaalka al xaq wala adimooya casr waa aqin kuwa wax aad naftaada la jeclaan lahayn hala jeclaan walaalka ani saasa idin kula talinaya gabdhaha Soomaaliyeed oo commentiyaasha dadka uu qoro iska dhaaf commentiyaasha awlaalin ku daawacaysiin ana xataa waa arkaa commentiyaal aan fiicnaan wala isoo qora ayadoo liicaynaayo lafta u saaraa waana ka sii taga qaarkood waa ku qoslaa wallahi bila waa la yaabaa muxuu ka faa'iida ani waxba iga ma bedeli karo qofkan waxaan sameeyay already am janalkayga soo gal rabo ama uga soo hadli rabo uga soo hadlooya waa ogaa wax ma sameeyno yani wax dadka dhan ka soo hadlooyaan la ka soo hadlooya hadana qofaa wuxuu ii soo caynaa maxaa ka galay marka qof caadiisa qof wax ma ka bedelayso dadka qaar dadka isku mid maaha dadna ma jecelo in la caayo oo ma xamili karaan marka walaalayaal gabdhaha dhibaateysan caayha ugu sii darnin ayaga dhibaateysan hadana qofka markuu dhibaateysan yahay wax walba uu nugul yahay ya qof walaalka oo dhiban wax walba uu nugul caay xamili karin hadalada qaar xataa marka qaar waxa dhigay qofka markuu dhibaateysan uu nugul yahay hadal adi wanaag ku dhaha xataa inuu sar xamili karin laga yaabo marka iska dhaafa hadalada walaalkiin ay ku duraysiin dad waxaaba jiraba dadka inay war le ku duraan inay wax ka sheegaan mugi ah wax u daawan dad waxaa jira xataa magacyadooda saxda ah commentiyaasha yani gmail-da ku qoranin oo magacyo kale ku qortaan si ay commentiyaasha dadka uga jafaan marka adeeda magac qarsid ilaahay ma ka qarsan kartid ilaahay ku jeeda marka insha Allah iska dhaaf commentiyaasha xun labaas gabdhood walaalahay oo wada dhiban sidee ma arkino isku taageerayaan sidee isku dhiirigelinayaan aad runtii ugu farxay oo uga helay ma sha Allah tabarakallah aqliga labadiina aaleedii ilaahay idin barkay Soomaaliyeed in saas Allah ka dhigo yani dad qof asoo dhiban walaalkiis dhibkiisa dhayaayo yaa laga helaas yani yaa laga helaa ma sha Allah adoo dhiban dhibka walaalka dhay waa wax wanaagsan ma sha Allah hal lagu daydo Faadimo hodan ya Faadimo ayadoo dhiban ay dhibka hodan dhayaysaa hodana ayadoo dhiban ay dhibka Faadimo dhayaysaa marka intaad noqon lahayd qof walaalkiis dhibkiisa yani ku sii ma arkino
takoora oo ma arkino waran maanta oo ku muguuda ama ku juqeeya ya noqo qof dhibka walaalkiis dhayo ya ha noqonin qof soo nooleeya dhibka walaalkiis haysta ee noqo qof dhibka walaalkiis dhaya dhamaanteena saasaan isku ma arkino waaninayna hadii Ilaahay raali ka noqdo commentiyaasha aan qoraynana commentiyaal noo controlan aan ognahay oo hadalka wanaagsan waa sadaqan oo ah aan qorno iska dhaafa caayda iska dhaafa aflagaadada iska dhaafa waxyaabaha xun hadal xun comment ku qortay qofkan dantiisa wataa adina war xun ka tagay maxaa ka faa'iiday qofkan waa qof asaga qorsheysta wuxuu programku soo deyn lahaa asaa qorsheysta adina ka alta shanaayo marka waxa fiican hatta hadaa qofku waanaysid oo qalad ku aragtid walaalay waxaan waa laga fiican yahay waxaan ma ku bedelatid qofkiina waxa u sheegtay adina war xun ma adrihin laakiin ka warida qofka caysid naaya saana tahay saama sameysnaaya ayanta saana tahay waa si fogeysan qofka waxna ka bedelaysid marka insha Allah hadalka wanaagsan waa sadaqo hadalka wanaagsan aan ma arkino mar walba isku dardaarno haduu Ilaahay raali ka noqdo dhamaantiin intii caaysiin inta kale tiraani waxba uma qaba cafisi masaamax adinkan sidoo kale adin ka rajeynaya insha Allah gabdhahaas walaalaheena duco un bay nooga baahan yihiin ee hadal xun nooga baahna aan soo wada duceeyno Ilaahay inuu muraadadooda u wada sahlo haduu Ilaahay raali ka noqdo muuqaalka inta ku soo gaarto waa mahadsan tahay muuqaalada inta ku kulmayno waxaan ka tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh